بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنو وناكسن إذن هانتين بعض وضيال قور كستا إيو قوب كستا عدنا قد وريسان كنا سود وادا ورئيسي قاره وعنو ليلانينو حسن محمد صالح وكما قاعدين حسن صومالي واضي صومالياد ووايارقا وحبضن أسو جوغي وعنو جعل الله إنانو كوريسانو حالدها وكسوغن يهي دلك صوماليا أبارتا هادن دلك هايتتا abaariyo hore ee dalka soo maray ugu horeyntii xasan maxamed saalax xasan Soomaali ku soo dhawow telefishinka caalamiga ah ee Waabari TV waa mahadsantahay maxamuud aad iyo aad baad mahadsantahay waana dhowahay waa tahay aad ba mahadsantahay xasan Soomaali soo dhaweyntaada ku soo dhawow mar labaad ugu horeyntii waxaanu jecel lahay inaynu ku bilowno abaara ayaa wadankii ka jira waayaarag baa tahay wax badan u soo joogay wax badanna odayaal ka soo gaaray oo sheeko ku maqlay bal waxaad marka hore nooga warbixisaa abaarihi aad u soo joogtay iyo abaarihi aad maqashay sidaa way aad iyo aad baan wixii aan ka ogahay anigoo isla aad baad u ogtahay kaaga waramayaa marka hore maxamuudow abaarihii hore xoolaha iyo dhulka iyo mid walba nooc gooniya bay ahaayeen xoolaha baraaguhuma ay jirin biyo macaanna xoolaha lama siin jirin xoolaha ceel wiyeera oo boor hoola mid biriqodaya oo beri hore loqoday iyo mid rabaaniyaba oo wiyeer la yidhaahda baa laga waraabin jiray xooluhu tay ay yeelan jireen xoog bay yeelan jireen midda labaad xooluhu waktiga abaarta waxaa lasoo degi jiray dhulka ceedasha leh ilaa cayn baan garanayaa ilaa nugaal ilaa sanaag halka u shisheesa ceelashaasaa laga cabi jiray baraaga ma jirin biyo macaan lama siin jirin seeraa dhulku ahaan jiray inta badan inta ingiriisku ina xukumi jiray dhulka jiilaalka la degayana waxaa la seerayn jiray guga dhulka haddee beerkuna jiilaalka la daaqayo markaa dhulkii oo caws ka baxay baa xooluhu iman jireen waxaana la seerayn jiray oo laga dhigi jiray dhulka biyaha leh dhulka ceelasha aan kuu sheegayo leh baa laga dhigi jiray ceelal badan ba halkaa ilaa cayn ilaa halkaa ahaa xoolaha abaartan aynu imanka la qaylinayno xooluhu sidaa uma badnayn dadkuna saa uma badnayn waxaa lagaga bixi jiray oo dadka ka saari jiray tagoog awr iyo tagoog shabaab rag iyo dumar doonan ha ahaadee waayo waxaan saa ku leeyahay 3 casho 2 casho baaba dhaan ku dhixi jiray hablo iyo erama xooga baa kaxayn jiray biyaha keeni jiray waa tahay marka haddaad isu barbarto abaartan haadan jirta iyo abaartii hore maxaad isleedahay waa ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin dee dhulma ma jiro dhulkii waa la gubay waxna cagtaa la mariyay waxna dabaa la qabatiyey abaartu ma aha mid iska timi waa mid ilaahay inoo ku cadhoodo inoo keenay waa dhulkeenni baynu gubaynaa oo dadku gubayaan oo dhuxul iyo waxaa lama oqoon barigii hore dhulka lama gubi jirin waa la ilaalin jirin waxay ku kala duwan yihiin markaa xoolihii waxay cunaan heli maayaan jiilaalkii waa tahay inta badan marka aad fiiriso dooxooyinkii berigaa jiri jiray baabuur baa soo baxday oo berigaa baabuurtu inkastay baabuurtu ay yarayd baabuurtan wadada uu baabuurku marayo inta badan markuu roobku da'o biyihii dooxada ku fidi lahaa waxay marayaan wadadii uu gaarigu maray taa ma isleedahay waa waxaan ka hadlayaa maxamuudow berigii hore waxaa jiri jiray xagaaf wax la yiraahdo waa wado qura baabuurka ka bayra baabuurta socotaana maba ahayn waqooyi oo dhan 10 baabuur ma ahayn baabuurka ka bayra wadada waa la khasiri jiray waa la ciqaabi jiray hadduu qarta jeexo maanta 2 malyan oo baabuur ka badan baabuurta joogta wadanka midba meeshuu doonaa buu maraya biyihii markaa waa farahayga xaggaasay marayaan xaggaas dhulkii daaqa ku bayri maayaan xaqiiqadu waa caynka waa tahay marka ay abaarahan haatan abaarihii hore markii abaartu dhacday oo kale abaarta qaab nooceeya ayaa looga bixi jiray macaws baa la sii samaysan jiray waxaad noo sheegtay in loo soo guuri jiray dhankan ceelasha leh waxaa looga bixi jiray dhulkii ceelasha ahaa oo dihin
oo laga maqnaa waqtigii raxmaadku jiray baa la iman jiray oo cawsku aniga iga dheeryahay xooluhu waxaasay geli jireen oo cuni jireen oo kayd ba ka dhigan jireen kayd baa ka dhigay kayd baaba laga dhigma waaba seere cidda lagu qabto waa la ciqaabi jiray oo dowladihii jira baa yidhi yalla iman dowladda hadda dowladda ma jiraan dowladda ingiriiska ka hadlaya si fiican haa si fiican reerka gala ama ninka gala xoola geliya geela gala waa la khasiri jiray la ciqaabi jiray markaa dadkii waxay soo biyadegi jireen waktigii jiilaalka bay iman jireen ilaa intaa nugaal cayn ilaa sanaag waktigaasaa lasoo degi jiray abaarihii soo maray maxaad ka xasuusataa ama lagaga sheekeeyay abaartii ugu darneyd dee kuwa badan baan ka xusuustaa kuwa badan ama aan joogay ama la iiga sheekeeyey baa jiray dadku adeer iimaan buu lahaa dadka niman kale na soo gaadha ilaah baa la beri jiray ilaahay abuurtay baa la beri jiray dadka niman kale beesha caalamka adduun beesha caalamku waa 4 kelmadood maaqa afka wuxuu ku riday beesha caalamku ana soo gaadho baca ha noo keento waxaanu cunno ha noo keento ma ahayn dadku dad iimaan leh xooluhu waxay ahaan jireen riiq bay ahaan jireen wax la yiraahdo riiq waa xoolo ambiye macaan cabayna bee qaraar cabaya abaarta tan iminkaan hashadoo kale dee xooluhu saa uma dumi jirin ma dumi jirin xooluhu xoog bay ahaan jireen wax badan baa hari jiray dadkuna waxooda u hadhay bay ku noolaan jireen cid loo qaysho iyo cid timaada iyo raashin loo qaybso iyo waxba ma jiri jirin marka sahanka markaa hadda fiiriso uusoo noqonaya taas marka hadda aad fiiriso sahanka beriga hore ee la tegi jiray ee reerka loo sahminayo nin baa baxa maalmuu sii dhaxaa wuu soo noqdaa hadda wixii oo dhan waxay noqdeenba telefoon in maxaa la dhahaa lagu sahmiyo arrinta kale marka la guurayo la hayaamayo awr iyo waxbaa la raran jiray awrta hadda waxaa bedeshay baabuur oo dad reerkii baabuur buu ku guuraya marka ma is leedahay baabuurtan iyo telefoonadan iyo waxaanu waxay keenayaan dhibaato hor leh bay keenayaan waayo waxay u keenayaan labada mawduuc aadii sheegtay waxaa weeye reer baad arkaysaa meel wanaagsan oo cawsle oo wanaagsan yaalla dhowr wiig baa ka maqnaanaysaa waa soo noqonaysaa meeshii baad maraysaa ma yaalin meel kale yaalin waxaad oranaysaa maxaa meeshii wanaagsanayd meel abaaray joogaan oo taaga maxaa uga soo guurteen wuxuu ku oranayaa ateena malaha ateenana maashii geedaha lahayd anteena la-aan bay uga guureen taasi waa mid oo moobeelka waa tan kale oo ah awrkii waa laga dallacay dhibta uu keenana hadda dadkayagii deegaankayaga waxay u guurayaan bari fog bay u guurayaan reer aan baabuur ama lama kaxaysanayni waaweyn ma jiro baabuurtaasi waa baabuurta aan sheegayo oo dilaya dhulkii xoogaa ku hadhay inta la shiday maahae intii kale waa baabuurta dilaysa marka dadkii dhibna wuu ku cararayaa wuxuu moodayaa inuu dhibka cararo hawl yaraystay dhibna wuu gelayaa waa tahay maxaad gaarsiinaysaa bulshadan oo ku saabsan abaartan dadkan aad siin lahayd talagelyo maadaama nin waayo araga tahay xasano waxaan siinayaa soomaalida maanta i dhegaysanaysa khaasatan dadka aan jeclahay oo soomaali ku hadhay oo reer baadiyaha ah oo xoolaha inoo haya waxaan leeyahay war waxa dhulkiina dayacaya oo gubaya oo sida la ogyahay u gelaya iska qabta waa tahay waa tan labaadee waxaan leeyahay dadka ama ganacsatada ah ama qurba joogta ah ama maamulada isku sheegaya dadka abaartu ma aha tii dhici jirtay waa mid loo dayacan yahay ka warhaya oo dadka u gurmada oo dadka waxtara waa tahay waxaan u galaynaa arrimihii kale ee siyaasadda dalka soomaaliya oo ku jiro waddadii cergaabo oo iyadana aan warbixin aan jeclahay bal inaan kaa wareysto wadahadallada khaatumo iyo somalilan maamulkii maakhir gobollada loo sameyn lahaa gobollada suul sanaag iyo cayn loo sameyn lahaa degmada buuhoodle iyo isagana waxbaan kaa weydiinaya ugu horeyn xaggee u maraysaa waddadii ceel daahir ilaa cergaabo isku xiraysa waddada ceel daahir meel wanaagsan bay maraysaa
ma aan tegine dee sida aan ruudhaasaday oo waxay soo gaadhay horta caratuurkii meel la yidhaahdo Cawsane. Cawsane waa gud 20 kilomitir halkii laga soo qaaday ilaa halkaas ama 20 ku dhawaad, marka way wanaagsan tahay wadadu. waa tahay arrimaha kan hadda ee Soomaaliya ka jira waxaad la socotaa xildhibaanadii in la dhaariyay madashii wada tashiga ay 18 kale ay ku dareen in wali beesha caalamka inay doorashadu markasta ay dib u dhacayso maadaama ay tahay nin siyaasi ah in badanna ku soo jiray arrimaha kan waayo aragna ah. maxaa is leedahay xaaladda Soomaaliya waa la degi laadahay? Maxamedow, waxay la degi leedahay arrinta Soomaaliya horta howlaha aad iyo aad baan iminka uga gaabsaday. sax. waayo waxaan ii muuqan wax natiijo ah baan iiga muuqan. nin waalan baa la yidhi baana yidhi war ninka guriga ka qabta iyo gubine wuxuu yidhi haddaan waalahay guriga saleeyahay sidee la ii gelayaa? maanta dadka Soomaaliyeed oo siyaasiyiinta sheeganaya tabtaasay ku jiraan. waa lagu dad lagu maamulayo iyagu aan meel lagu kici karayn, iyagu go-aanan lahayn, iyagu waxaan gaadhayn. marka halkii dadka qaar ka ama dadka kale waxaan leeyahay wixii maamula iyo wixii dowladda oo qura ma aha, waxaa khariman iyana dadka shacabka ah. waayo dadka shacabka inuu wax karto baa quman. wax walba reer walba waa cabanaya, reer walba adduun weynuhu u qeylinaya. ya mayaanay Soomaali ahayn. tirimanolojiga ay ka hadlayaan waxaa ka mid ah beesha caalamka baanu u sheegaynaa, eegad baanu u sheegaynaa, jaamacadda carabtaanu u sheegaynaa, UN-kaanu u sheegaynaa, kanaanu u sheegaynaa. war mayaanay Soomaali ahayn iyagu oo isku dad ahayn oo isku diin ahayn oo dad walaala ahayn? may arrimahooda iyagu dhamaystaan oo wada hadlaan oo isu dul qaataan. bal eegaan hadda in mid khayr qaba ilaahay inoo keeno oo wax bedela sidii Maxamed Siyaad Barre wax bedela. waa tahay xasan, waxaad ka mid ahayd odayaashii inta badan usoo ka soo shaqeeyay in maamul loo sameeyo gobolada Sool, Sanaag, Cayn. shirar badan baa ka dhacay Nairobi oo lagu madeynayo Maakhir iyo Khaatumo oo markaa laba maamul oo markaasi jiray ahaa in bulshada beelaha Warsangeli iyo Dhulbaahante iyo waliba beelaha kale ee degan goboladaasi maamul loogu sameeyo. arrinta ay ku dambeysay Maxamedow aad baan u jeclaan lahaa labada reer magaca ku dhifatay afka laba reer oo dadka ugu liita ma ahaan jirin, laakiin maanta waxaa ii muuqata inay dadka ugu liitaan number 99 yihiin, numberka ugu dambeeya Soomaali inay yihiin. waxay ku dhacdana waa waxyaaba iska macluuf ah. tan maamulada aad sheegaysid anigu waxaan aaminsanahay maamul dhismaayo haddaan waddanka gudihiisa laga dhisin inaanu jirin. waayo maamulku waa inuu waddanka gudihiisa ka dhisnaa. labada reer hadday waxooda dhisanayaan waa inay waddanka gudihiisa iyo xarumahooda isugu tagaan oo ku tashadaan, inay talada ka baaraan degaan weeye. waa jeclaan lahaa inay wax dhistaan, laakiin uma ekaa inay wax dhisanayaan. waa tahay waxaan jirta in maamul waqooyi bari lagaga dhawaaqay magaalada Nairobi oo madaxweynaha ka ahaa Cali Bare Faatax. waxaynu ognahay in maamulkii Khaatumo iyo Somaliland hadda ay wada hadallo ay galeen. marka haddaan ku hormarno maamul goboleedka lagaga dhawaaqay Nairobi, waxaad leedahay markii maamulkaas waxay ahayd gudaha inuu yimaado? waxaan leeyahay Maxamuud horta ninkay ku dhawaaqay anagu isku family baan nahay. sax. waa nin waqooyahana waa nin cilmiyahana. si fiican inuu Nairobi kaga dhawaaqo isagu kuma dhawaaqin weliba. isagu carabkiisa kuma dhawaaqin. nin magaalo jooga magaalooyinka Warsangeli ka mid ah baa ku dhawaaqay. si fiican lama aan jeclayn, waa uga hanweynaa sidaa. sax. waxaan jeclaa isagoo Caliya dhulka gudihiisa inuu yimaado oo yidhaahdo warkaadaya waxaasaynu dhisaynaa kaadaya. cidda diidda markaa la arko. laakiin meel qurbaa buu joogay
ninna waa soo wakiishay ninkii baa wax ku hadlay ya ma ahayn markaa wax rasmi ah oo docnaba rasmi ka noqonaysaa dee uma ekayn waa tahay oday waa yaragaa tahay in badanna soo joogi wax badanna og xasan soomaaliyo inkastoo aad tiri siyaasadda waa ka yaranasta qaabkeeba ugu habboon baad is leedahay ayaa maamul loogu samayn karaa beelaha beelaha walaalaha ee deegaanadaasi tagay ee hadda maaqir iyo khaatimo kala haysta see qaab maamul midaysan oo shaqeeya oo kadii laasqori furan tahay oo caasimad leh deegaan ballaaran buu degaa oo marka hadda fiiriso maamulada kale kaba ballaaranba markaad fiiriso hirshabelle saga ka bannaaran markaad fiiriso maxaa la yidhahdaa galmudug saga ka ballaaran deegaan ballaaran ba degaan labada beelo maxaa is leedahay ayaa caqabad ku ah oo hortaagan qaab nooceesa ayaa loo samayn karaa maamul ay ku midaysan yihiin labada beelood iyo weliba dadka la dega deegaanka waxaa loo samayn karaa oo simbada sidaa aan kuu sheegay labada maamulba dhul bay leeyihiin ballaadhan dhulkaa ballaadhan in aqoon-yahaniinta iyo siyaasiyiinta iyo hoggaan dhaqameedada iyo guurtida iyo bulshada kala duwan ee dumarka iyo dhalinyarada iyo waxba inay isugu yimaadaan oo ka tashadaan si aan cunfi ahayn oo cunfi ku ahayn maamuladan hareeraha ka xigana aan ku ahayn waayo maamuladaana waa laysihayo mid walba waxbaa dadka ka dhexeeya laakiin anigu dee nin baan ahay inaan tashado oo sida ay u tashadeen u tashado waa wax daruuri ah waxaan leeyahay markaa iyagoo isu yimaada oo tashada oo aada u tashada maaha waxba dee hagaagi maaya waa tahay guntii iyo gabagabadii xasan maxamed saalax xasan soomaali bulshada ku daawanaysa ee soomaaliyeed maxaad gaarsiin lahayd waxaan gaarsiinayaa laba arrimood marka u horeeya waxaan leeyahay soomaaliya ilaahay ka baqa soomaaliya magaciini waa disheen ilaahay ka baqa weliba kuwa siyaasiyiinta ah oo hadda 100 baa madaxweyne doonaya 100 baa madaxweyne doonaya kuwa siyaasiyiinta waxaan leeyahay wadankii waa dhintay dadkii waa dhinteen war waxaad ka fakertaan dadka iyo dalka naftiina ka fakerin dadka shicibka ay u yihiin oo hadda oranayaan shicib bay yihiinna waxaan leeyahay war idinkan ruuxiinu ilaahay ka baqa oo waxgarta oo waxbaad qaban kartaan tan labaad waxaan leeyahay dadka abaartu hayso midatiinba u gulmada weliba reerka yaga oo deeqsiin oo anugahay aada u deeqsiina waxaan leeyahay war ninkii taariikhda lahaa ilaahay haw naxariistee raggii rag ahaa gabagiisii wuxuu ku yidhi dhaqasho iyo mar bay kaa yihiin dharagu xaaraan dhaqasho iyo mar bay kaa yihiin dharagu xaaraane reerkayaga waxaan leeyahay war maanta tiibaa taagan dadkiina cidi wax siin mayso deegaankiina cidi wax ma geyn iminka abaartu intaasay jirtay meel walba waxbaa lagu faraqayaa meel wax la geeya ma jiraan dadkiina waxaad cuntaan oo faakahaasi aan lahayn aada ku noolaataan oo cuntaan maahayn waxa kale u hibeeya dadkiina si kastaba u siiyo intaasaan kaga baxa waa tahay daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta naga wada mudan oo intaas ayaanu kusoo gabagabeyneynaa waraysigii gaarka ahaa iyo martida igu ahaa xasan maxamed saalax xasan soomaali xasan aad umahadsantahay adaa mudan maxamed caadi aadada waa tahay daawada intaas ayaanu kusoo gabagabeyneynaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aanu ku wareysanaynay xasan maxamed saalax xasan soomaali waa oday soomaaliyeed oo khabiir ah inta badanna aada looga yaqaano wadanka soomaaliya iyo weliba wadamadan qurbaha waxaa barnaamijkan waraysigan idii qaaday anigu waa maxamuud maxamed xasan maxamuud boocame dhanka farsamada kamerada iyo dhidikana waa cabdirasaaq maxamed xasan intaanu barnaamijkan barnaamij lamida ku kulmi doono waa bahda waa beri t v o dila sidaas iyo sarag damo xiise leh wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu